wixii ku caawiyay ee wax ku siiyay anna way siiyeen wixii ku taageeray anna way taageereen marna anigu kama xumee lagamana yaabo adeegay meel baan ku soo wada kornay walaashay baa tahay inaan eri xuntan ku ilaahdo inta media soo fariisto inaan hal eri xun adiga maqasho waa habeenkii xalay u tagay waxaan walaaltinimo ahayna kulama garab taagni adeegay waxa tiri ma soonto ma salaado adeegay 3 jir baa lagu geeyay Djibouti waad ogtahay 4 jir baa malcaamad laga diray Djibouti quraanka anoo haaf dhameeyay baa soo noqday 8 iyo dheeraad anoo baan sheekh lagu soo celiyay macallin qaasim baan galay waa tan sheekh quraan waan ku dhameeyay iskuul hoosan ka galay ku dhaxaan ka galay iskuulkii aan ka baxay ayaa haddana macallimad ka noqday taariikhda reer shaqo hayaan waan imi 2002gii ilaa iyo bariga aan Djibouti joogay reerku 5 jirkeyga Djibouti ugu qabsadeen ilaa 8 jirkeyga way haysteen haddana waxaan imi sheekh reerku intii buu xiriirinayaan Ingiriiska joogay waxaan ku markaan baasaboorka qatan waadeen manay 2002gii ayaan aniga khadar daahir kule ilaa jannada ka waraabi iyo sabriye oo adiga khadraha ka soo baxan Ingiriis oo hargeysanimi waa markaan reerka isbaranay adeegay waan ku sheegay waan ku sheekh waan tagay way ogaayeen khadrayana 1 month baan ku soo maqnaa kula joogo wax walba aynu ku wada hadalay aqal kasto sheekhna waan garaaco waan galay waxaan ku waxa doonaya qof reer sheekho iyagu dhaarta 1 year sana 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano qof yaqaana anoo magaaladii sayladii ururdaya sheekho iyo ciyaalkan la ciyaariyay ii dhaaran masaajidka ii gelaya ayaan u baahnaa reerkan bay sarkimayna haleegu dhaarto qof la xuulay adoo kureey oo weyn oo 8 jir 9 jir ayaa lagu keenay baan ku aragnay adeegay waxaan haddana reerkii ku soo noqday 2006kii sheekh baan kugu yimi waan ku yeeray guri khadar baan ku soo digay kaale reerkii baro kaale is arka tolka soo kaxayso kaale la hadla wada hadla baan ku ri waad iga diiday inta telefoon baan ku wada sheekh bad ku noqotay okay inta media soo fursato walaalina ayda kaama mudniye anigana waad ogeeday bariga hore halka joogeed waxa doontaan ku hadlayseen ee la igu laana maxaad u hadli weeday waan ka xishooday inta media soo fursato inaan gabooyo caayo gabooyo ma caay karo ana ahaan jiray oo ku faani jiray madaxayna ii saaran eri xun uma qoolo nimca yaasiin caraale fanaanad caan ku ah Soomaalida ayaa dabcan tahay muddadii hadda maqnayd waad ogeyd laba qoys ayaa hadlay oo mid waliba leeyahay annaga inaga dhalatay nimca yaasiin caraale oo waliba qaar kood badeen ay arrimo ku doodayaan adigu maxaad ku qancinaysaa dadkaas in badri aad baad u mahadsan tahay runtii anigu ku taageeraa wariyaashan taageera baa tahay waana ku faraxsanay maanta inaad wareysato hargeysa waxaan u imi inaan walaashay adeega andreena noo kala qaado labadii reerna aan kala saaro sheekadu halka ku dhamaato ayaan u imi hadii DNA digno loo kala qaado anigii walaashay hal allaale halkii ay rabaana waan raacaya diyaar baan u ahay ma allaale meesheedan noo raacaysa diyaar baan u ahay dad badan oo ku taageerana way jiraan dadka arintan ku jahawareeray ee ku taageera maxaad oranaysaa badriyo aaba iyo hooyo aad jecel oo fiican bay soo korsaday waxay baray quraani baray iskuuligu daray si fiican isoo koriyay oo dad aad iyo aad u wanaagsan marka horta totally inaan ka hadlo arinta ma rabin oo meedia soo fariisto marka horena waad ogeed intii xaqli igu kacday ee aamusay meen hadlay xalay markii la soo diray adeego iga caayisay media ayaa isoo fariisisay laakiin waxaan u imi asxaabta aniga jecel faaniskayga walaalahay Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aad baan idin salaamaya anigu waxaan aaminsanahay inaan ku qaraxsanahay in adeega DNA laga qaado that's all wax kale hargeysa Soomaaliyeed tigid baan soo goostay ilaa bisha dambe waan joogay 20keeda intaasaan doonayaa inaan ku dhameysto arintayda adoo fanaanad caana oo fanka badan ku soo jiray in arin isqabsi laba qoys ay timaado dareecankayba adiga ku muujinaysa wallahi horta badriyo dareen aniga aad igu wanaagsan bay muujinaysa sababtoo ah in adeer sheekadan waxaan uga wata maaha waxay adeeg wadatana maaha waa wax xagga Ilaahay ka socda Ilaahay baa wata anama wato adeegna ma wato boqorka wata sheekadan way iska soo cadaanaysa laakiinse wax dareenaho hadda aan ka qabaa ma jirto laakiinse waxa aan aaminsanahay hadii maanta aan ahaan lahaa gabadh Soomaaliyeed
aqalkeedii iska joogto fanaanada haynuuna cidina aqoonin adeegina midhiya ma soo fadhiisateen otomati haddayna soo caawiyahay gabar baa walaashay diideed waa tuma walaashaa ayaa la odhanaya anagaa naqaan ma walaashaa laakiinse waxaan ka xumay aniga fanaanadu ah caanoo la yaqaano taasay adeegina iga faa'iidaysanaysaa inoo iyo saara iyo guriba waan aaminsanahay fanaanada oo hadalkeeda sii wadata waxay intaasi raacisay horta waxaan ku faraxsanahay maanta Somaliland heerkay gaadhay waan ku faraxsanahay madaxweynaheena maanta mudane Muuse Bixi Cabdi talaabada uu qaaday ee sharafta leh mudnaanshaha leh maxay ahaydeen qiirada leh wanaagsan maanta adowga ku jabay ee uu qaaday aad baan ugu faraxsanahay waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay madaxweynaha hambalyo guuliyo gobonimo halka ka sii wad horaa loo soo cunayaa ayaan soo waday marka badraawiyo horaa loo soconayaa ni Cabdi Jibaar hayaan ka soo raac horaa loo soconayaa hayaan ka soo raac marka dawladda waxaan leeyahay waan idin salaamayaa arrinteedana kulliba Somaliland bay u taalaa Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.